mid waxaanu nidhi inaad ka fakartaan gabadha Soomaaliyeed sideeba iyadoo kartideeda hufnaanteeda aqoonteeda iyo waxtarkeeda laga eeci doonaa sanadkii ugu yaraan hal mar baa haddana ka mid nahay marka haweenka arrimihiisa marka la fiirinayo anigu waxaan aaminsanahay in tayada hogaaminta haweenka oo xildhibaanada ah iyo haweenka ururada bulshada u madaxa yani iyo dhammaan executive ama laanta fulinta haweenka ku jiro in loo sameeyo tababaro tayadooda kor u kicinaya oo hagaajin kara inay soo qaadaan ajandooyinka ama arrimaha haweenka u danta u gaarka ah inay kor keenaan bulshada rayidka ah iyo dadkii shaqeeya baarlamaanadooda oo horumari waxaan ogahay haddii aan gacmaha isqabsano ha noqoto dowlad gabdhaha xildhibaanada dowlad goboleedyada iyo federaalka wasaaradda bulshada rayidka ah ee arrimaha xuquuqda haweenka iyo xuquuqul insaanka ka shaqeeya inaan meel dheer gaari karno parliamentarians to make sure that you organize yourself and you have women also in decision making. That chair is for women. You are supposed to sleep and walk and think of what are you going to do for the women of Somalia. Don't think about what am I should behave well so that in next time my tribe picks me. No, you should dream and work to think of what are you doing to shape the life of the women of Somalia. Waxaan rabaa inaan We wanted to bring these women together so that when they're in their constituencies, when they're out there working, they know that they're not alone, that they have fellow women all over the country that are doing similar work. And through networking, they can feel empowered. ajandaheena waxa waaye inaan anaga horumarino gabdhaha Soomaaliyeed oo aan mas'uulka ka nahay aan shaqo abuur u sameeyno oo aan gaarsiino wadankeena oo aan tusino in maamul wanaag dimuqraasiya labadaba ay ka jirto waxaan filayaa inay ka soo baxaan wax badan oo muhiim haweenka u ah inaan waa isbaranay horta barasho wanaagsan inaan halkaan aanu ka ambaqaadno haweenka xuquuqda haweenka sida haweenka loo horumarin lahaa haweenka federaalka labada aqal iyo maxay ahayd haweenka maamul goboleedyada iyo haweenka bulshada rayidka haweenka gobolada iyo degmooyinka inaan halkaan aanu ka ambaqaadno oo aan xuquuqdayadii aanu halkaas aanu ka raadino The state level there has been increased representation in the state assemblies in Puntland, in Galmudug, in Jubaland, in Hirshabelle, and in Southwest in particular, with Southwest now having 21% women representation in Parliament. This is tremendous progress from the situation previously.